halkani waa kanaalka Igloon Kidmed. maantay waxaynu ka hadlaynaa barnaamij gaar ah oo aan ugu hadli doono banaanbaxii dhagaxtuur. guddigii xaqiiqo raadinta ee ka socday afartii dal ee ku adkaatay dagaalkii labaad Ruushka, Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska waxay Muqdisho ka soo degeen 6 Janaayo 1948. baaritaankii guddigu u socday waxaa qalqal ba'an geliyay ama horjoogsaday banaanbaxii la magacbaxay dhagaxtuur ee shacabku ku diidnaa soo noqoshada Talyaaniga. iska horimaadkaas waxaa lagu dilay 54 qofood oo Talyaani ah iyo 51 dhaawac halis ah la gaarsiiyay. dhinaca Soomaalidana waxa uu mudaharaadkaasi ugu dhintay 14 qofood halka 48 kalena ay ku dhaawacantay kuwaas oo ka tirsanaa taageerayaasha Talyaaniga. waxaa guddigii xaqiiqo raadisku warbaahinta ay soo qoreen u gudbiyeen golihii wasaaradda arrimaha dibadda shirkoodii Paris September 1948. khilaafkii golaha wasiirada oo markii horeba taagnaa ayaa haddana waxaa sii cakiray banaanbaxii dhagaxtuur ee Muqdisho ka dhacay. sidaas darteed ayaa golihii 15 September 1948 go'aansadeen in arrinta ku saabsan wax laga yeelayo wadamadii Talyaanigu gumaysan jiray la horgeeyo shirka golaha loo dhan yahay ee GQM. mar haddii iyagu ku heshiin waayeen xarunta GQM oo ah goobta laga maleego lagana fuliyo shirqoolada ka dhanka ah ee xorriyadoonka iyo rabitaanka ummadaha dulman, ayaa markii la hordhigay dooda iyo wax laga yeelayo wadamadii Talyaanigu hore u gumaysan jiray loo ambaqaaday si qaab daran oo aan ina filaynin. doodii oo weli socota ayaa Talyaanigu dadaal ballaaran u galay sidii ay dib ugu soo ceshan lahaayeen maamulka koonfurta Soomaaliya oo ay hore u gumaysan jirtay. diblomaasiyiin iyo ergasaro ay ka mid ahaayeen Sykes-Picot, Sykes-County-Fort, Sykes-Payne iyo Sykes-Picot ayaa Talyaanigu u kala diray wadamada Yurub iyo Ameerika, waxayna kulamo la yeesheen wasiirada arrimaha dibadda iyo madaxda wadamada ay booqdeen, waxayna kala hadleen inay ku taageerayaan Talyaaniga siyaasadda ku aadan dib u soo celinta wadamadii uu hore u gumaysan jiray. muddadii u dhahaysay labadii kulan ee shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay, iyadoo kulankii koowaad lagu qabtay Paris 1948 kulankii labaadna lagu sii ambaqaaday Lexington ariga Mareykanka 1949 ayaa waxaa socday wadaxaajood dhexmaray dowladihii dagaalkii labaad ku adkaaday oo la xiriiray waan iyo tanaasul ay ka sameeyeen wadamadii Talyaanigu gumaysan jiray. dadaalkii wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga Master Counts-Fort wuxuu noqday mid miro dhalay kadib markii uu wasiirka arrimaha dibadda Ingiriiska Master Bevane uu la meel dhigay heshiis hoose. nuhurkiisu waa in koonfurta Soomaaliya dib loogu celiyo gacanta Talyaaniga. waxaan halkan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii oo aan ugu hadlaynay banaanbaxii dhagaxtuur.